maxay dad badan shaqo la'aan u noqdaan iyaga oo haysta shahaadooyin sida degree, master iyo kuwa kaleba? Waxaa jira 10 sababood oo dadka waxbartay ay sabool u noqdaan. Qodobka koowaad, dad badan oo waxbartay waa faqiiriin, waayo waxbarashada lacagta laguma barto dugsiyada. Wax macnaa ma sameynayso inteen leeg ayaad waxbarasho nidaameed soo waday, ama imise degree ayaad haysataa, waayo lacagta waxba kama garanaysid. Waan ka xumahay. Lambar 2, intooda badan si degdega ay u ilaawaan aqoontii ay ku soo barteen goobaha waxbarashada marka ay ka baxaan waxbarashadii kadib, waayo waqti badan ay dadaan waxbarasho oo shaqo xoogga ma saaraan. Qofkana waxaa loo carbiyaa inuu noqdo shaqaale. Lambar 4, waayo dad badan waxay aaminsan yihiin inay yihiin aqoon-yahano, balse ma aha sidaas. Lambar 5, dad badan intooda badan waxay qaataan deymo ayay bixiyaan. Lambar 6, waayo intooda badan shaqada ayaa laga ciriyaa dadkaasi maadaama ay shaqaale yihiin. Lambar 7, waayo intooda badan waxa lagu leeyahay deyntii waxbarashada jaamacadda, macna ahaan lacagtii ay wax ku baran jireen muddadii wax baran jireen lacagtii ayaa lagu leeyahay. Lambar 8, waayo cashuurta dadkaas iyaga ayaa laga sameeyaa, ama cashuurta la qaadaba badankeeda iyaga ayaa laga qaadaa. Lambar 9, waayo markasta ood waqti ku lumisa fasal waa markasta oo aad noloshaada ku keliyoodo ama aad madi ku noqotid. Lambarka 10aad waa xirfad la'aan. Dadkaas intooda badan xirfad ma bartaan ama xirfad gaara ma sameeyaan, kaliya waxay xoogga saaraan inay waxbarasho galaan. Waxaan kasoo turjumay oo diyaariyay clip ka diyaariyay TV-ga la yiraahdo Success Secrets, aniguna waxaan turjumay sanadkii 2018.